waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo 28kii bishii Oktoobar si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. tartan ciyaareedkan oo ay ka qayb galeen 14 gobol ee Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay xidhitaankiisa madaxweynaha Soomaaliland, wasiirro ka tirsan xukuumadda, mas'uuliyiin kala duwan iyo waliba boqolaal kamid ah taageerayaasha kala taageersanaa xulalka gobolada Muroodijeex iyo waliba Daadmadheedh oo maanta fooda isku daray ciyaartii ugu dambeysay ee lagu kala qaadayay koobkii dhex yaalay 14 gobol. waxaana ciyaartan oo ahayd mid aad u xamaasad badan sidoo kalena labada kooxood ee kala metelayay gobolada Daadmadheedh iyo Muroodijeex mid kastaba uu dhinaciisa soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan. ugu dambeyntii ku guuleystay inuu koobkaasi qaado xulka gobolka Daadmadheedh kaas oo gobolka Muroodijeex kaga adkaaday 2-1. waxaana labada gool Daadmadheedh u kala dhaliyay ciyaaryahanada Wacdi iyo waliba Khadiir, halka sidoo kalena gobolka Muroodijeex uu goolka u dhaliyay ciyaaryahanka Goonfida. intaasi kadibna madaxweynaha Soomaaliland ayaa u hanbaleyay xulka Daadmadheedh ee ku guuleystay hanashada horyaalka gobolada Soomaaliland. waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu dardaaran u jeediyay ciyaaryahanada isagoona sheegay in sidoo kale loo joogteyn doono ciyaaraha. ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliland waxa uu abaalmarino iyo waliba bilada guddoonsiiyay ciyaaryahanada xulalka gobolka Daadmadheedh iyo waliba Muroodijeex. sidoo kalena waxa bilad sharaf iyo shahaadooyin la guddoonsiiyay kaajajki iyo waliba ciyaaryahanadii ugu ciyaarta wanaagsanaa, akhlaaqda wanaagsanaa, uguna goolalka badnaa. dhammaan ciyaartooyda garoonka ka soo qayb galay kuwii garaabay iyo ilaa maanta ciyaarayayna waa waxbaranaynaa. ciyaaruhu waxay leeyihiin iyo faa'iido leeyihiin waa barateen hadduu lahay dhalinyarada Soomaaliland. waxaan u hambaleynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland inay joogaanba mid ciyaarayay, mid taageero ahaa, mid qabaqaabiye ahaa, mid habeenkii dooda iyo faallada ku dheeraanayay. dhalinyarada waan ku hambaleynaynaa. waxaynu baranay ciyaaraha soo dadka si dhexdeeyaan, waxaynu baranay say nabadda u dhaliyaan, waxaynu baranay say loo firfircoonada qaadkii bareeraha looga baranay. waxaynu bilaabaynaa ugu dhowaan aynu ku nafsiinaynaa inaynu bareyno inay magaalooyinka waaweyn bilaabaan sanadka oo dhan oo sanadka oo dhan ciyaaro oona ciyaaru joogsanin baynu bilaabaynaa haddana sanadka soo socda. dhalinyarada kuwa ciyaara kuwa taageera waxaa laga doonayaa inay ciyaarta si saaxiibtinimo oo qofraado ciyaaraan. 14 gobol ee ka qayb qaatay tartankan ciyaaraha ee gobolada Soomaaliland loo qabtay. xulka gobolka Daadmadheedh ayaa koobkan u qaaday, waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu qaado. xulka gobolka Daadmadheedh ayaa kaabkan u qaaday, xulka gobolka Daadmadheedh ayaa koobkan ciyaaraha ee uu maanta hanantay, waxay noqonaysaa markii koowaad ee uu noqdo horyaalka gobolada Soomaaliland. waxaana hore 3 koob u haystay gobolka Muroodijeex, halka gobolka Togdheerna ay 2 haysteen. gobolka Awdal isna 1 koob gobolka Daadmadheedh ayaa isna waxa uu ku soo biirayaa gobolada haysta koobka. Adfitaax Xareed, codka Bariga Afrika, Hargeysa. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.